interviewhi nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed oo yiri nimanka isqarxinaya waxay qabaan HIV recorded by TV waa duubanta wali wahayna ilaa madar baadre del fiyo del Spirit Santa ame qofka HIV qaba ilaa intuu noolaan karaa dadka aan daawada qaadin ilaa 3 sano ilaa 5 sano lagu leeyahay waxay ogaatiin ruuxa qaba HIV inuu la mid yahay oo ku xaq yahay qofka kale oo socda adduunyada ilaa 48 milyan oo qof ayaa cudurka la jiifta hadana qaldaneen daawada ugu dambaysa loo saaro xawaaye lenacavir that is an injection way meeshaad kaniiniga ka qaadan lahayd for life aad wadi lahayd waxaad u baahan tahay 2 injections only 6 bilood hal cirbada u baahan tahay maalin kasta daawo ma qaadanaysid HIV goorma la helay HIV yaa laga helay badana annaka taariikhda waxaan isku maaweelinaa HIV waxa la helay 83 kii uu reelay kii labaad goorma la helay 86 laakiin maskaxdiina ka shaqaysiiyay HIV wuu noolaa 1931 1935 1950 wuxuu ku joogay laakiin magac kale the virus itself SIVS was zoonotic virus waha joog jiray ku dhex noolaa xayawaanada laakiin dadka markaas aanan u soo gudbin badana labada nooc oo actually oo qeybsamo infection la saaro waa 1 and 2 one oo kii u horeeyo la ogaadaha 1983 hadana qaldaneen waa la sixi doonaa waa particular group oo kiimada una badan waxa la helay 1983 HB1 saxanahay iyo 2 labadooda xagee ka kala yimaadaan labadooda waxay kala yimaadaan midna chimpanzee oo kiimada wuxuu badan yahay in West Africa nooc kale daanyaro kiimada oo leeyahdo mangal professorkii goorreey uu ka dhawaajiyay transmission warsee loo qaadaa haddaad rabtiin inaad fahamtiin inaad ogaatiin maanta wixii ka dambeeya isticmaala kelmadda yiraahdo gaalada maxay isticmaalaan ilaa madar baadre del fiyo del Spirit Santa ame waa ducadii ku duceystaan waa kristaanka waay wax kale ha aadanina cross-ku ay caabudaan that is the transmission of HIV macnaheedu maxay tahay only 2 types vertical oo hooyada ay ku dhasho iyo transmission oo ah human to human marka waa dadab iyo gudub maxaa ka soo baxaysa calaamadii mata kooreyno umana jeedo inaan iyagu wadan leeyahay laakiinse the way that aad idinku sahlan aad ku xasuusan kartiin waa balkan soo dhib u keenaa waa taqaaneen marka qaadanaysiin basic physiology waa uma tirakobkan waa u imaan doonaa raalli hada waa bobsiinaya kaliya waxna ba inaan soo wada kobo wuxuu ataageerayaa CD4 markuu galo oo selka gudihiisa sii tago replication uu ku sameeyo maxaa imaanaya marka immunity-gaaga ee noqdo very low markaas maxaad u nugushahay inaad qaado all opportunistic infections marka HIV iyo AIDS waa kala laba marka HIV you can be positive with HIV virus laakiin marka aad tagto AIDS marka aad tagto means the complications already waa haysaa sheekh jiradooyinkii waa qabtaa you are already infected haltana dadkan u sheega markii cudurka laga helo horay daawada ka bilaw further aad daawada dhaqso u bilawdo opportunity waxa haysataa replication-ka viruska inuu ka yaraado taas waxay ku sahlaysaa ilaahay xilligu kugu talagalay inaad gaarto kuma dhahan annaka daawada ruuxa gaarsiinayso laakiin statistically marka la fiiriyo laga hadlaayo qofka HIV qaba ilaa intuu noolaan karaa dadka aan daawada qaadin ilaa 3 sano ilaa 5 sano lagu leeyahay waa average complication markuu soo baxo laakiin hadii meeshan la joogo Maxamed Saciid
ما شاء الله markii ugu dambeysay maxamed saciid aan ka qaadnay CD4 kun iyo maqaheed kun 330 dadka caafimaadka qabo ka fiicnaa markaas aan ka hadlay waa how many years ago 2019 keed fiiri farda daawo qaadato dadka kale oo bini aadanka la mid tahay statistically on soo wareega marka adduunyada qayb waxaan u dhaafi doonaa Dr. Saadiye iyo Dr. Bashiir tan Soomaaliya ku saabsan adduunyada ilaa 48 milyan oo qof ayaa cudurka la jiifta 65 kamida 65% of it Africa ku nooshahay in which dan cadad ah 26 milyan iyo gogo Soomaaliya inta ognahay kulli waa isxii doona Dr. Saadiye ilaa hadda inta la hayo positive ka waran 8000 in which 5000 of them ay qaataan daawada anu soo deega marka stigma or the entire objective ka barnaamijkan aanu qabanay ay tahay calool xanuun far badan aan soo marnay adinka haddaad ma taqaanaa la koosanaysiin calool xanuun far badan aan soo marnay especially labaas ruux xagga fadhiyo maxamed saciid waxaan ka wadaa Dr. Bashiir Gurey Dr. Saadiye annako xataa meel kasta laga soo xirtay oo isbitaalka bukaanka markaan keenay ama ay dhashay ama wax u baahdeen inay cishta bukaanka markaan loo sameeyay section birihiisa xataa banaanka noo lagu soo tuuray bukaanka noo lagu diiday in loo sameeyo dialysis haddana qaldaneen Dr. Saadiye keeska ugu dambeeyay dialysis goormo aan idin soo gudbinay less than 2025 at Somahan dialysis on rabi my kaas waa kii aan ku guuleysanin waaye dialysis midka on rabno aan dhahay waa waag dhinta it was this year it was this year 2025 my 25 fiiriya bukaanan oo dialysis u baahan oo magaalada dialysis yaalo oo loo soo wada diiday maxaa dhacay ijaabiya qabtaa arrintii noogu naxda badneed and we recorded officially war markii cidaada ay ku tagooraan dariskaaga uu ku tagooro community-gu uu tagooro dawladda booliska waa samaysay laakiin ma lagu dhaqmaa the question mark waa kor saaran tahay waxaana soo martay taariikh noogu xumayd interviewii nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed oo yiri nimanka isqarxinaya waxay qabaan HIV recorded by TV waa duubanta wali waayna waa meesha aan ka gaarsiisanahay waxa mutaqaan meesha aan ka gaarnay taliyaan nabad sugidda markaan leeyahay kan hadda jooga ma horay noo soo martay waa wax official ah TV-ga ku duuban tahay documented waaye marka stigma waxay ogaatiin ruuxa qaba HIV inuu la mid yahay oo ku xaq yahay qofka kale oo socda wuxuu awood u leeyahay inuu noolaan karo wuxuu awood u leeyahay inuu shaqeyn karo wuxuu awood u leeyahay in waxa qofka bini aadanka uu qabo uu qabsan karo inuu qaban karo adduunyada hadda waa horumartay kulliba daawad waxa iga dambeyn doona Dr. Bashiir iyo Dr. Saadiye daawa la qaataa afka laga qaataa luckily haddaan taaganahay haddaan qaldaneen daawada ugu dambeysay loo saaro xawaaye lenacavir that is an injection waay meeshaad kaniiniga ka qaadan lahayd for life aad wadi lahayd waxaad u baahan tahay 2 injections only 6 bilood hal cirbada u baahan tahay maalin kasta daawo ma qaadanaysid wali caada 6 bilood markaad ma qaadato surveyaasha ugu dambeeyay laga sameeyay USA iyo South Africa 99.9% waxa waaye waxay gaareen to a limit of in qofkii viral loadkiisana uu dhacayo cudurradii ka soo bixi jiray qofka bini aadankana oo ah opportunistic infection oo ka caafimaad qabo taasna maxay keenaysaa xaddigii noloshiisa uu noolaan lahaana ay sii dheeraato marka waxaan leeyahay wacyi haddaad bilaabaysiin wacyiga gurigiina ka bilaaba cidiina horta ka dhadhacsiiya HIV inuusan dhibaato lahayn kadib dariska u gudba kadib annakoo wax fahamsan oo
dhagahayna fiican yihiin weli dib loo laabana doctor Saadiya Maxamed Saciid dadkan soo wada shaqeynay waxaan xasuustaa dadan daawada xildhibaanaan daawada waxa waaye isbitaalka ma soo geli jirin xataa daawada waxaan uga fiiqi jirnay baakada fiiri baakada magacaasi aan loo arkin waa ka fiiqi jirnay iyadoo fiiqan oo sideeda ah mutuxan aan dhigi jirin hal si xildhibaanka taasirtiin dadka caafimaadka ka shaqeeya oo annaka kala ah annaka ah beeska ugu horeeyo oo istigmada bilawnaba waa idin sheega caafimaad leey ana kamid ah annaka istigma bilawnay sababtu maxay tahay warqad ay AJV ku qoranta isbitaaladiina ma ka soo baxdaa kama soo baxdo maxaa idin kugu qoran hif bif kiss ka adiga ku qorateen terminology aad taqaaniin waa marka why you are hiding cudurki waa jooga waa qaaday maxaa u qarine jod ha jod isbitaalki dawladda ku dhex sameeynayna wali aniga aswaas la ognahay jod isbitaalki dawladda ku dhex sameeynayna fiiriya marka stigma guys annaka iska bilaawno ha aadinina banaanka way banaanka doonaysiin war adinka been sheegoy oo been qarinay marka waxaan leeyahay guys xiligan maanta aan taaganahay teamku wuxuu ahaa overcoming the disruption and transforming HIV waa teamka sanadkan waa marka dadka qaarkood markay fiiriyaan kelmaddaas waa la sahlan tahay maanta haddayna qabato fiiriya maanta haddayna qabato in kharashka HIV ku baxo na laga joojiyo where we gonna go who gonna take the responsibility yaa tabar u haya marka leeyahay kelmadda ah overcoming the disruption basically it will go to waa in la helaa a continuation to all that type of programs inay socon lahaayeen iyo response laga bixin lahaa hadday timaado